gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Awdal State Yuusuf Cumar Yare ee waxa uu halkaan fariin uga dirayaa shacabka Awdal State dal iyo dibad meel kasta joogaan. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد anigoo ah gudoomiye ku-xigeenkii baarlamaanka Awdal State Yuusuf Cumar Yare waxaan shirkan jaraa'id u qabtay maaragtay inaan kaga hadlo maanta fariin aan u dirayo shacabka reer Awdal State ee ku nool gudaha iyo dibadaha intii muuqayga taqaana iyo maaragtay inta maanta arkaysa iyo inta dhageysanaysaba waxaan leeyahay walaalayaal ma sidaad ogtihiin waad ogtihiin inuu maamul Awdal State uu ka dhashay dunida dacaladeeda iyo geeska Afrikaba walaalayaal maanta waxaanu leenahay maamul marka waxaan la hadlayaa dadkayga gudaha jooga gaar ahaan magaalada Boorama Saylac Lugaya iyo deegaanka dadka Samaroon Salal gobolka Gabiley iyo gobolka Salal iyo gobolka Awdalba waxaan leeyahay walaalayaal waxa lagu maanta lagu maaragtay mashquulinayaa waxa weeyaan baabi'ina iyo sidii maaragtay jiritaankiina u lumi lahaa marka walaalayaal maxaynu kaga bixi karaa waxa la isweydiinayaa dhibaatadan waxaynu kaga bixi karaa inaga oo iska dhaafna waxa la yiraahdaa qabiil kana reehbala iyo kana reehbala iyo kana cidaniya oo u gudubno sida qabiilada kaliba yihiin ay u midaysan yihiin aan u midowno oo inagoo markaa ku midoobayna marka horse u gudbayna midnimada Samaroon marka labaadna u gudbi doona midnimada jiritaanka ummadda Soomaaliyeed walaalayaal waxa la nagu mashquulinayo maaragtay kolba qof liniga soo dirayo sidaynu ognahay ba Hargeysa maaragtay Boorama loo imanayo la leeyahay odayaashiini iyo qaashiini waaweynaa maaragtay shirka Soomaaliya kama qayb gali kartaan ninkan imanaya iniga ila shirka Soomaaliya kaga qayb gali kartaan isaga ayaa niiga horeeyay shirka Soomaaliya oo qayb kamid ah ayuu u dirtay shirka Soomaaliya uga qayb galaysa balse ujeedadiisu maxay tahay ujeedada siiraayo waxay tahay waxa weeyi si aana dadka reer Awdal hadeen u soo bixin oo gobolada loo yiraahdo gobolada waqooyi galbeed oo inigu u muuqan oo kuraasida halkaas Soomaaliyeed ee waqooyi uga soo baxaysay oo isagu u qaato marka waxaan leeyahay walaalayaal ayaan maanta khurufaad iyo been inigu seexin annagu siyaasiyiin baan nahay wax kasta waanu ognahay waxa weeyaan waad ogtiin shirkii maaragtay Ingiriiska ka dhacay ee lagu qabtay Ingiriiska inaan maaragtay qof Samaroon awna ku jirin oo maaragtay qabiil ay isku soo wada raaceen maantana 3 nin iyo 4 nin oo maaragtay naasa hablooda oo qabiil qura ka soo wada jeeda ayaa shirka Turkiga loo diray taasi waxay tusaysaa in liniga qarinayo ujeedooyinka iyo sheekooyinka meesha ka socda in liniga indhatiro maaragtay si ay uga qayb gelin hadhow meesha uga soo bixin oo quwadda ra'iis ah oo meesha uga soo baxdo walaalahay waxaan sheegayaa oo maanta aan ogeysiinayaa haddaad u qaaltihiin haddaad odayaal tihiin haddaad dumar tihiin dadka gudaha jooga inaan indhaha liniga tuurin meeshan waxa ka dhashay maamul goboleed annaguna waan soo gaaraynaa waqti dhow gudaha hadii Ilaahay ka dhigo inaynu isku wada tirsanaano goboledeena hadday tahay maaragtay xeebaha iyo hadday tahay buuraha iyo hadday kilinka shanaad tahay iyo hadday Djibouti tahay ba ummadda Samaroon oo dhani iyadoo isku duuban dalkiina ay dhisatiin aanad u dhooftiin aanad tagtiin waqti alla shir Soomaaliyeed la qabanayo ee xamar lagu qabanayo ama dibadda lagu qabanayaba hadday u qaal tahay iyo hadday odayaal tahay iyo hadday wax garan tahay iyo hadday professor tahay ba aad ka qayb gashiin taasi baan maaragtay nigu gobaabinayaa wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh